ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka dib u xoreynta deegaanka ayaa kaabiga ku haya deegaanka Booco oo qiyaastii ku dhawaad 50 kiiloomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ciidankan oo ka ruqansaday magaalada Beledweyne isla markaana uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo toddobaadkii labaad hogaaminaya howlgalka ka dhanka ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa ciidanka waxay haatan ay ku dhow yihiin deegaanka Booco. ciidanka ayaa ka hor Booco inta aysan gacanta ku dhigin waxa ay 24kii saac la soo dhaafay gacanta ay ku dhigeen deegaano ay ka mid yihiin Nuur Fanax, Tarashante, la hele Burdaar iyo kuwo kale oo ay kaga sii gudbeen deegaanka Booco oo la rumaysan yahay in haatan Al-Shabaab ay fariisin u tahay. diyaaradaha dagaalka oo ay leeyihiin saaxiibada dowladda Soomaaliya ka caawinaya la dagaalanka kooxda Shabaab ayaa lagu arkay deegaano u dhaxeeya la hele ilaa iyo Booco kuwaasi oo ciidanka barbar socda. waxaa qayb ka ah howlgalkan taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka General Tawane Axmed Maxamed Gururey, taliyaha guutada 5aad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim Baaka iyo saraakiil kale. waxaana howlgalkan iska kaashanaya ciidanka xoogga dalka qaybahooda isugu jira guutada 5aad qaybta 27aad, guutada 8aad ee ciidanka Gorgor iyo ciidanka Kumaandooska Danab oo ay barbar socdaan ciidanka deegaanka kuwaas oo howlgalkan fulintiisa ku howlan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo warbaahinta kula hadlay bartanka deegaanka Nuur Fanax ayaa wacd ku maray in dhulka Soomaaliyeed inta ay Shabaab joogaan dagaalka uu socon doono. shacabka ayuu ugu baaqay in ciidanka ay ku garabsiiyaan soo gudbinta xogta Shabaabka iyo sidoo kaleeto in dagaalka ciidanka ay ka barbar dagaalamaan si loogu guuleysto kooxdan muddada fog dhibaatada ku haysay bulshada Soomaaliyeed. muddo aan isleeyahay hal week waa ku dhowdahay ama waa dhan tahay waxaanu howlgallo uga jirnay magaalada Beledweyne iyo magaalada Boole Berde inta ka dhaxaysa deegaamadii awal hore looga saaray nimanka cayayaanka ee dhiigga bini aadamka caadaystay ayay mar labaad waa wax aqsunaasa oo waxyaabaha la yaabka oo aan maanta arkay waxaa ka mid ah dhulkii baaruhu ku yiileen iyo deegaamadii roobku galay dadkii shacabka ah inay daaqaan ama degaan xitaa uma ogola. dhulkaasaan howle ka wadnay Beerxaano, Tirijeento, Burdaar, Nuur Fanax, la hele iyo deegaamo kale. waxaa maanta Allah subxaanahu wa tacaala mahad ka gaadhay suuragal noo noqotay inaan ka saarno magaalada Nuur Fanax ee istiraatiijiga ah ee aan hadda ku sugannahay. ciidamada howlgalayana waxay ka kooban yihiin ciidamada xoogga dalka ee sida raaxa u booda iyo kuwa deegaanka sida caarada u socda caarada way garanayaan umana birdhigi karaan inay iska caabiyaan caado uma lahayn mana iska caabi karaan. waa niman shaqadoodu tahay inay waxgaadaan inay masaakiinta yani xoolaha ka qaataan yani waxa lagu leeyahay qofka bisha Ramadaan marka uu soomo asaga ayaa xaq u leh fitrad cidda uu siinayo inuu doorto. waxyaabaha ugu yaabka badneed maanta arkay waxay ahayd inay dadkii leeyihiin keena fitrada adinku ilaahay idinkii hadday ku noqotona inta ay deegaan Hiiraan ka mida ku jiraan ma dhigi doono gulufka iyo inaan ka saarno dhulka ma dhigi doono mana dhaafi doono ama ay Soomaaliyaba ku jiraan aan idhaahdee intay Soomaaliyaba ku jiraan
ma ka nasan doono mana ka aamusi doono gacmahana kama laaban doono laakiin fakalti ahaan aniga fakaltiga aan ku magacaabanahay waa hiiraan waxa aad ii quseeyaa waa hiiraan hadda dhulka ay ku hareen waa webiga Shabeelle dhanka galbeedka ka ah halkaasi ku hareen deegaamo badan oo dhulka ka bannaan oo aysan joogin oo dadka deegaanku kula dagaalameen waqti hore wilna ay dhulka ka ilaaliyaan waa jiraan oo isla galbeedka ah deegaamay ku jiraan waa jiraan ilaahay idankina ma fariiso doono gacmahana isma saaro doono annagoo aan deegaamada ka saarin gulufka aan hadda ku jirno inaan uga sifeyno hiiraan iyo Soomaaliyaba ayaan u diyaarsanahay dadka Soomaaliyeed haddii dhulkiina lagu soo duulay midabka doontaan yeesha ciidamadu waxay ciidamada qalabka sida ilaalinta wadanka waajibaaba ka saaran oo waa kuwii u diyaarsanaayeen oo loo aasaasay ayagoo midba qayb leeyahay waa u diyaarsan yihiin laakiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee hubaysan iyo kuwa aan hubaysnaynba waxaa la rabaa inay qaybta ugu weyn ka qaataan ayaguna in ay la dagaalamaan cadowga sababta dhulkoodii lagu soo duulayno waxaan la ogoleyn oo kali ah in ayadoo la leeyahay loogu magac daray cadow baan la dagaalamayna system warlord ah in loo isticmaalo qabaa'ilka ayaa qalada system warlord in loo isticmaalo qalada laakiin cadowga in la dagaalamaan oo kii qori haystay xabad ku rido oo aan kii qori aan haysano soo sheego oo wadaad halkaas ku jira xagganay socdaan oo meel walba telefoon baa ka baxee leesu kaashado wax aad u wanaagsan waaye in guulo badan laga gaarana way dhacaysaa aniga hadda hadal badan inaan ilaahdo uma istaagin inaan u mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo ciidamada xoogga dalka ee howlgalka maanta nagula jiray iyo ciidamada deegaanka intaba iyo kuwa nabad sugidda midabkay doonaan ha yeesheen fakalti kasta yihiinba ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa u mahad celinaynaa kuwa deegaanka oo runtii aan dhihi karo waa dad muwaadiniina u diyaarsan inay cadowga iska dulqaadaan walow ay ku jiraan qaar aad moodo sidii u fakarayaan si yaab leh inay tahay ay ku jiraan haddana bini aadamku inuu 100% seef garoobo israaco ma dhacdaba maba dhacdo sidaa darteed waxaan leenahay waa mahadsantihiin midabka doontaan yeesha dadka Soomaaliyeed Allah subhanahu wa ta'ala aan adoonku u nahan waxaan uga mahad celinaa inuu noo suuro geliyay in cadawga aan ka adkaano oo goob kasta oo ugu hornimaado uu cararo taana Allah subhanahu wa ta'ala ma hadda iskale dadka Soomaaliyeed waxaan mar labaad carabkay ku adkaynaya war ha loo istaago dhagar qabayaasha in Soomaaliya laga saaro Soomaaliyey maxay ahayd haystii wadadii banaaneed laga weecan maayee Soomaali weynay wacad baa inoo yaal Soomahay war wacad baa inoo yaal wacadka inoo yaala muxuu yahay waa in shabaab laga waayo wadanka shabaab in dalka laga waayo wacadkaas inoo yaal Soomaaliya intaasaan kula dardaarmayaa anigana waxa iga go'an haddii alla idmo inta shabaab dhul Soomaaliyeed ku jiro inta itaalkaygu la egyahay hiiraan inaan ka saarno Soomaaliya inaan ka saarno qalbiyan iyo ficliyanba haddii Ilaahay idmo da wax kastana culays kasta ha jiro awood la'aan kasta ha jirto wax walba haystaa marsanaadeen laakiin wax la barbar dhigi kara shabaab oo loogu cudur daari kara ma jiro Maxamed Ibrahim Siyaad telefishinka Kalson deegaanka Nuur Fanax